السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيارتا قيمها iyo qayaanaga mudan meel walba aad dunida aad naga daawataan waa TV-ga Muqdisho TV. ciidamada sirdoonka Soomaaliya ayaa waxay sir xasaasi ah ka soo heleen cidii ka dambeysay gaarigii isku qarxiyay isgooska Zobe ee magaalada Muqdisho. ciidanka ammaanka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu xoreysanayay cidda ka dambeysay qaraxaasi iyo ujeedka lala dabacsanaa. bulshada Soomaalida ayaa waxa ay qalbigooda ka saareen cabsidii ay ka qabeen al-shabaab iyagoo ku soo baxay wadooyinka magaalada Muqdisho iyo ayagoo si xor ah uga hadlaya baabuurta dhexdeeda kula tilmaamaya ficilkaasi inuu yahay ficil gurcan oo lagu baabi'iyay shacab Soomaali ah. geesta kale shacabka Soomaalida ayaa waxay isla dhaxmarayaan in falkaasi ay ka dambeyso shirkadda isgaarsiinta Hormuud, taasi oo sida la sheegay ka dambeysa ficilada gurcan ee badanaa ka dhaca magaalada Muqdisho. waa sida hadalka loo dhigay iyagoo tilmaamay in gaarigaas ku qarxiyay asarkiisa ay lahayd shirkadda Hormuud. gaariga markii lagu celiyay kontaroolada kamida kontaroolada lagu baaro baabuurta ayaa waxaa fasaxay nin kamida shirkadda Hormuud, taasi oo haddii ay rumowdo noqon karta shirkadda ugu badan oo saameynta ku leh qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho. gaadiidka ayaa sida la sheegay waxaa laga soo raray agagaarka magaalada Muqdisho beer ku taala, kaasi oo sida la sheegay si aad loogu soo buuxiyay macdanta kiimikalka ah ee dadka baabi'isa. haddaba sirta ka dambeysa maxay tahay hadafka ay shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay dadku ugu eedeynayaan in ay ka dambeyso qaraxaasi ama ay lug un wax ku leedahay dhibaataynta shacabka? markii aan xooraasanay ayaa waxa ay dadka badankoodu leeyihiin dheergaradka ah in shirkadda Hormuud markii ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ansixisay proposalkii isgaarsiinta shirkadu ka xumaatay proposalkaasi, taasi oo ka qaadaya xuquuq badan oo hadda shirkadda si xura ay ugu dhaqanto oo aan cil xisaabtanta jirin. waxay sheegeen in shirkadda Hormuud ay iska haysato furaha kusoo galka dalka 252, kaasi oo dadkao dhan ka wada dhexeeya, balse Hormuud ay iyada danaheeda gaarka u adeegsato lacago badan ay ku qaadato. haddii arrinkani run noqoto ayaa waxaa ku farxaya shirkadaha kale ee isgaarsiinta la tartamay Hormuud sida shirkadda isgaarsiinta Nationalink iyo Somtel, kuwaasi oo jaanis u noqon karta in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay haddii ay xanibto Hormuud ay iyagu ka faa'iideystaan. haddaba xukuumadda federaalka ee Soomaaliya nuuxnuuxda socota sidee ayay go-aan ugu qaadan doontaa? ma shirkadda isgaarsiinta Hormuud hawada ayay ka saari doontaa oo ay xanibi doontaa, mise laaluush ayay ka qaadan doontaa iyaduna? dadka ayaa waxay leeyihiin shirkaddu waxay haysataa lacag aada u fara badan, waxa ayna iska bixin kartaa caqabad kasta oo ka hor timaada, xitaa waxa ay laaluushi kartaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo haddii ay u baahato in ay sii jirto. ummadda Soomaalida ayaa waxaa baabi'iyey in badan dagaaladii sokeeye ee dalka soo maray, balse waxaa ugu darnaa qaraxii maalintii Sabtida ahaa ka dhacay isgooska Zobe, kaasi oo galaaftay in ka badan 300 oo shaqsi, taasi oo weli dunida ka dhicin markii laga reebo weerarkii ay al-qaacida ku qaaday sarihii Twin Towerska ee New York iyo Washington. haddaba qaraxani wuxuu noqonayaa qaraxii ugu xoogganaa ee dunida ka dhaca oo lala beegsado dad muslimiin ah, sida ay sheeganayaan qolyaha kale haddii ay yihiin iyagu ay la beegsadaan qolyo kale oo muslin ah. dadka Soomaalida waa dad muslimiin sunni ah oo isku wada diin ah. Soomaali ma lahan Kristan oo muuqda oo wadooyinka ama kaniisada ku leh Muqdisho ama dalka intiisa kale, ama lahan shiico oo ku leh masaajido ama macbadyo ay ku caabudaan waxay aaminsan yihiin. Soomaaliya male buudiyiin ama mushrikiin macbadyo ku leh dalka ama magaalada Muqdisho. marka in la qarxiya magaalada Muqdisho ama dadka muslimiinta ah ha ahaado wasiir ama madaxweyne, in la qarxiya oo miino loo dhiga ma ahan mid ansaxa. taasi waxaa qaba culimada Soomaaliyeed kuwooda waaweyn oo ku tilmaamay in xalka koowaad uusan ahayn qaraxa ay tahay in dadka Soomaalida ah wax loo sheego, la iswacdiyo, wixii la isku qabtana lagu noqdo kitaabka Allah iyo sunnada nabigeena Muhammad.